بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد marka la kusoo dhawaada waxsan sheeg media iyo magaalada Oslo xarunta dalka Norway anigu waxaan ahay Abu Stiiqo Faarax waxa horteeda soo fadhiya Abwaan Maxamed Said Afgaab oo hore aad u aragteen gabadhiisa iyo murtiyadkiisa suugaantiisa oo maantana inoo sidaa gabayo iyo maansooyin cusub bal hadda marka la kusoo dhawow Abwaan Maxamed aadi aad baad mahadsantahay Sadiiq waan kaaga mahadcelinayaa inaad mar labaad isii soo fursad aan dadka la wadaago dareenkayga suugaaneed waa markii labaad sanad ka hor bay ahayd markii aan duubnay maantana maansooyin kale ayaan soo diyaariyay oo aan rabaa inaan dadka halkan uga gudbiyo ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله maansooyinka maansada koobaad ma mid baa mise waa laba waa laba maanso oo aan soo diyaariyay mid hore ayaan u diyaariyay sanadkii hore ayaan diyaariyay midna haddaan diyaariyay labada maanso ayaan rabaa inaan soo bandhigo oo mid walba hordhiceeda bandhiganaasa intaan sawiro dabadeedna ujeedadeeda markaa laga dhex arko markaan tago ما شاء الله maansada koobaad magaceed maansada koobaad waxa weeye waxay ka hadlaysaa dimuqraadiyadda ka hadlaysaa waxay tahay dimuqraadiyaddu ayaan rabaa inaan kaga hadlo تكلمنا waxay ka hadlaysaa waxa la yiraahdo xorriyadda ayay macnaynaysaa way ka hadlaysaa ما شاء الله ما شاء الله daba ku soo dhawow adiga oo bal hadda waa Abwaan Maxamed oo inoo bilaabaa maansadii koobaad ee dimuqraadiyadda ka hadlaysay falyatafadal mashkuura aad iyo aad baad u mahadsantahay marka ugu horeysa intaanan maansada bilaabin bal hadda dimuqraadiyadda waxaan rabnaa cilmi ahaan waxay tahay inaynu xoogay aanu eegno waayo shayga marka la rabo xaqiiqdiisa in la eego asalkiisa iyo asaaskiisa ayaa taariikh ahaan looga hadlaa صح marka si aynu ogsoonahay dimuqraadiyaddu anugu waxa weeyaan digirgasho garaad oo ay daafureen garaadyahano reer Giriga ka hor dhalashadii Nabi Ciise erga dimuqraasi waxay u taagantay laba eray demos oo ah dadka iyo kratos oo ah awoodda taasoo macnaheedu yahay awoodda ama xukunka dadka kala soo horjeeda xukunka qofka ama kaliya taliya asalka iyo asaaska dimuqraadiyaddu saasay ahayd laakiin waa la dooriyay waana la duway waxaana loo daliishaday dana siyaasadeed iyo duulaan garaad oo lagu jahaysnaa taasoo ah dariiq diblomaasiyadeed oo loo maray dagaalada daasoon iyo dirirta maskaxeed ee ku jahaysan dadyowga qaar haddaba su-aashu waxay tahay dowladaha ama dalalka midida daabkeeda haya ee dimuqraadiyadda dabada ka riixaya ma yihiin kuwa raba si ay isu dimuqraadiyeen ama ay isu dowladiyeen inay u dowladiyaan ama u dimuqraadiyaan dalalka kale ay kasoo horjeedaan jawaabtu waxaan oran karaa anigu waa maya maxaa yeelay mar haddiiba dagaal lagula jiro dowladnimadooda iyo daryeelkooda dani kuma jirto sidaa daraaddeed waxaynu kaloo odhan karnaa dimuqraadiyadda laftigeedu waa mid la abuuray oo ka dhalatay nidaam gumaysi oo sabab noqon kara dibudhaca lala rabo dalalka haddaba waxaynu arkaysaynu afahmayno maanta dimuqraadiyadda waafaqsan dictatornimada waafaqsan danahooda raalli baa laga yahay waana mid la ogol yahay laakiin sida dictatornimada danahooda ka soo horjeeda waa dembi waana la isku dilaa waana laga dagaalamaa saasaan oran karaa marka iminkana waxaan rabaa bal dimuqraadiyad inay noo bilaabo maansada inay noo bilaado fadal okay waxaan dimuqraadiyadda maanta iyo haddaan xogaa haddaa qaado dawaqaada guud iyo haddaan diira waayaha darsi lama ilaawaaniyo murtida buu ku daabaco damariyo indheergada haddaan wadarsiiyo daafurkeeda Greek baa lahaa oo ku daabaca diga rogorsho garaad baanay ahayd oo diiday waayaha dariiq doorasho ayay inay furto shacabku doonayso dowladda ujeedada iyadoo laga dab qaadayo nidaam laga dumaalay noqotay dowladnimo fiican daacadnimo se markii loo dabaqo ayay daawo noqotaa haddii kale waa diga hoos kuna iyo dabnaale dabcigeeda niman baa bedelay oo geliyay doorsoonka dana lagu jaahisanayo dagaal ayaa loo daliishaday diblomaasiyad goortee laga noqotay diinbaas duulaan garaad baanay tahay dunida qaarkeed dembi ayaana looga dhigaa kii loo dan leeyahay difaac adag ninkii aan lahayn dood ka celin waa daryeel guud iyo wanaag haddii laga aadmoodo daaqa dulmiga iyo dhibaatadii meeyay dabarkeedii dabargooyaasha maxaa loo daldal waayay dambiyada aanu qabanay kuwa diilinta galaa diiwaanka dhaqan dad kale maxaa loola diraa dalalkaa dambeeyay dirirtu aafaysay dibdhacaasi biyo kuwa dowladnimada daruuraadkii nolosha iyagoon haysan daawaba deeqda la siiyo maxaa kale darsi shaytaan duwaagnimo la faafshiyo maxaa keenay dood jaban damiirkii iyo hagaagii maxaa looga dilayaa dariiqii wax soo saarka maxaa looga dilayaa dabargooyin dictator haddii daacad ay tahay in dameere dhaan raacdo maxaa looga dhigay doorka aadmiga maansida koowaad ee dimuqraadiyaddu intaas ayay ku korantay maansada labaad oo macnaha xorriyadda ay waxay tahay xorriyaddu mar kale waxaynu u gudagelaynaa maasadii labaad iyo Abwaan Maxamed bal hadda ku soo dhawow Maxamed mar kale aad iyo aad baad u mahadsantahay iminkana waxaan rabaa inaynu duubno maasadii labaad oo ah xorriyadda marka ugu horeysa intaanan maansada bilaabin waxaan rabaa xorriyaddu waxay tahay bal inaynu qeexno ama aynu ka bixino definition aynu ka bixino
xorriyaddu waxay weeyaan waa madax bannaanida dabiiciga ee bini'aadamka jir ahaan maskax ahaan iyo dareen ahaan isla markaa waxaa jirta xadidnaan akhlaaqeed oo waafaqsan xulashada habboon ee maangalka iyo xeerarka dabiiciga ee ku aroor kana soo aasamay diimaha xeerarka iyadoo markaa wax laga dheeganayo ayaa dadyowga iyo dowladaha adduunku waxay sameeyeen xeerar iyo haddaba marka su-aasha aan isweydiinayna waxaynu odhan karnaa xorriyaddu ma wax dabiiciyaba mise waa wax bini'aadamku sameeyo xorriyaddu waa wax dabiiciya waxaa lagu xadidi karaana waxa weeyaan waa xeer dabiiciga marka haddii ay tahay wax dabiiciya xorriyaddu xeerka dabiiciga xaggeebu ka yima ayaduna su-aasha noqonaysaa xeerarka dabiiciga waa xeerarka waxay ka yimaadeen diimahay ka yimaadeen diimaha sanaawiga waayo luqadda ingiriisha waxa jira wax la yidhahdo natural law baa jira waayo bini'aadamku dee xeer ma samayn karo xeerarkaasunbaa wax laga dhigtaa oo la sameeyaa marka xorriyadda adduunka ka jirta markaa waxa weeyaan marka ay saa ay arrintu tahay xorriyadda ku jirta iyo xeerarka la sameeyey ma yihiin qaar ku salaysan sinaan iyo cadaalad waa maya waayo su-aashu marka ugu horeysa dadka markii la sameynayey dadku awood ahaan ma ahayn dad siman maya ayagoon marka waxaa lagu jaangooyey ama lagu sii kala sarrayn iyo dana siyaasadeed sidaa daraaddeed xeerarka iyo xeerarka lagu xadiyo xorriyadda ee adduunyada ka jira dadyowga qaarna way sameeyeen qaarna waa loo samaystay oo waxaa la rabaa in maganasa lagu xiro taasaana su-aashu maganasa ayaan ku qeexi karaa iminkana waxaan rabaa inaan idiin bilaabo maansadii xorriyadda waxaan xacda gabay xuskeeda iyo murtida waa tii aan xaafid ku ahaa xeeldheeri waayaha adduuniya xilligan waan xaaladayn jiray xaraf ugeeye ma uhiye waa u xudigayaa maantana mid baan soo xulay xiise loo qabo xornimo xaqiiqdeediyo haddaan xogaha baandheeyo xujo lagu wareeriyo haddaan dulada xiib siiwo ama aanan dhanka cuniyo xagal cidhiidhi xaje ka abbaarin waa xaq iyo xurmada dhammaan ilma aadan iyo xaawa waana xayndaab dabiici oo ku yaal xeerka diimaha xad kasta way ka boodeen markii damcu xoogay xeer dheegtayaal baa u kahay boob xalaashaday xaqnimo waxaa loo dulmanay waa xurmadiid xolaynta aadna ayaa loo xarlinayaa waana xumo la doortay xarle taariikhdu oo buug xaashida madow ku yaal tan iyo xataa xaaladii gumayntu waa xusuus dhow xanuunka iyo dhibkii laga dhexlaa xaadiroo jira xabadii awood baa lagu qabsay duul xoroo jira xagjimnoo gumaysi ayaa xeego ku ciyaartay xayawaan sidiisi ayay xerab ku ooteen xarumaha dhulkoodii ayaa xaalfu la edeeyey xaraash iyo dhoofin deg buu gaadhay xaalkuba xeebaha afrika marbay ahayd seelad xawliya xakamaha addoonsigu waa xalaal yahay xisaab lii la iibsado intii xiise loo qabo xikaasnimo dagaal baa garay xaajo wadaray xaquudirayaal adduun baa u furay xinjiro dhigaad xilli kala guuriyo dabayl xoog labaa tumi xamdu allaa lagu xoro xaaladii hore balse xisaabtii dhan kale xuma ku leeday xafadii gumaynta ayuunbaa loo bedelay xeerad maskaxeed xayiraad garaad iyo aqli baa jirto meel ku xidhiidhaysan xarumayn adduunyadan xaafad laga yeelay xorriyadda iyo dadnimada iyay xadidaysaa xuska iyo damiirka ayay xaraysaa xaqa iyo ilayska ayay xagar ku ooyeysaa xidigaha ifaya dayaxa ayay caad ku xidhaysaa xarfraaca maansada anoon ka bixin xaaladda hore xigmaddeedu waxay tahay amaan ku soo xoray xabsi iyo xakamo nafsiga ayaa jiroon abid laga xoroonayo xeerar iyo xafiisyaana u furan xornimadiidka marka maansada labaad ee xorriyadduna intaasay ku qoran dad badan ay ka faa'iidaysan doonaan odhaahdaada knowledge-ka iyo odhaah murtiyeedka maansooyinkan intaba mar kale intaaynu kulmi doono waa bahdo waxsan sheeka media oo idin leh isma dhaafno dhammaanba dadweynihiina halkan laga daawan doona aad iyo aad baad u mahadsan tahay abwaan maxamed aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya aad iyo aad